laba qodob baa jirta qodob waa mid oo prime ministerkaygu uu ku dhawaaqay aniguna aan ka daba tegin oo ahayd ciidamada kala tagaano waa Cumar Catiqaabe aadaan uga qoomeeyaa markii ma ahayn in amarkaas la bixiyo ma ahayn taas waa ka qoomeeyaa waxaan ka qoomeeyaa dagaalkii sokeeye aan u aqaano dagaalkii doqoneed aan u aqaano oo xamar ka dhacay oo mudulood iyo habar gidir waa ka qoomeeyaa aadaan uga qoomeeyaa laakiin qofka khariisada uu leeyahay ninka bini'aadamka waxaa ku jira wax ilaahay uu ku abuuray haddii geedku xaniya taabad ay gaarto ya qofka wuxuu yani waxa suurta inuu aqligu waxtaa ka dhumo ya laakiin anigu mid labada qodob oo ka qoomeeyo waa labadaas qodob waxa aad ka xasuusan karto adiga iyo Caydiid markii wax dhaceen dad badan baa idin soo dhex galay wax walba idin soo dhex galay waxyaabaha aad ka xasuusan karto islahayd alla ilaahay maalintaas inaad ama iska dayso ama si samayso ayay ahayd maxaa kamid ah ilaa kulamo badan aad yeelateen marka taariikh way waxaan ka wareysanayo maanta oo taariikhdaasi ay inay ka harto ya mustaqbalka la doonayo haye diid anigu maalinaan u yeeray qolkayga jiifka wada tagnay hada waa private kiya qolka jiifka isla tagnay waa la Caydiid baqal aniga Jabuuti ba tagin doorasho halay doorto ma dhihin lacag kuma bixin ma weydiisan ma rabin waa lay soo doortay 2 sano waay wax lay siiyay aniga 2 sano anigu way ku badantaa ma rabo waxaan ku ballan qaadayaa sanad gudaheed doorashan sameeynayaa isla soo sharaxi maayo waxaad yeelaysaa maalintaas adigu isharax halkaas la gudaheed waxaan ku siinayaa wasiirka difaaca iyo taliyaha xoogga dalka isku kaadiraya halkaas sharaftaas hogsanaaw ku qaado iga diidi taas waa daciif midda oo yani aan islaahay waxaan weynay tolna kala qabtaan weyna ma ani Caydiid laba qof oo shakhsiyadan ahayn aniga waxaan ugu filanay asaga dadka aan ka dhalanay inay noo yeeraan ay yiraahdeen oo hebel oo adaa gardan hamba hebel oo adaa garle waa mar taas haday dhihi kari waayeen xoogaa ka cabsadeen waxayna dhihi kareen labadiina albaabka ka baxa واتي أي بعد ما ماذا علم والله بالله تالله ويلها واتي أي بعد على قرل عيد قرل سوكا يندي لي جفدا كدلنا او iyo 350 meel lagu xiray la yiri nimankan kala reeba ee subaxii dambe iyo soo bixin yireen على قرل عيد قرل arintaasuna waa boog hawiye ku taalo inta aakhira ka aadaan ku oolayso waay markii Caydiid inta ma ka naxday masoo ku farxad waa ka naxay waxa uga naxay waa nin muslim oo dhintay waxa uga naxay waay inkastoo laba dhinood isdagaalaysa aan ahayn laakiin nin adiga hada islaam tahay iyo muslim tahay yani nin muslim oo dhintay waa inaad ka naxdaa waay dawlad waxaad ku soo jirtay 25 sano ma sidaad ii sheegtay madaxweynena waa soo noqotay wax xoolad dadweynaha oo kugu maqan ma jiraan wad ogtaa ma sha Allah xoolo dadweyne anigu waa xaday anoo yar oo dhalinyaro oo 20 jir ayaa waxaan xaday 25 kun oo shilin Soomaaliya shilin Soomaaliya 68 waay waxaan ku dhistay guri siigaala ku yiilo aan deganayaan ku dhistay 3 kun dhulan kala baxay 3 kun injiirkan siiyay 24 alaabaan ku gatay diinti markaan dib u bartay oo dib u eego dib yani u bawsaday waxaan ogaaday inaan qatar ku jiro oo guriga aan deganayana oo xalaal ii ahayn waxaan ku cunaayay xalaal ahayn waxa ii u dhashay ilaahay ogiya xaaladooda guriga waa sadaqay muddo ka baad adana waa fikiray waxaan iri wariyaa sadaqo waxa adigu leedahay sadaqaysataa see adiga guri deyn lagu lahay see u sadaqaynay وابح بقي قد حانتك واحد حسن شيخ وحسن شيخ محمود حل غدوه بشير عيسى نوتقي وحان كوير بشير بنقي قد حين وحان كوير لحدا إيه سيدي دولار كم يغوهاي وهو هاي يوري لح شيلين يتمسيت سنتين لما تشكل يقو قيبي وعين غتا أفر كن يا $10 دولار
حسن شيخان وتجي حسن شيخ مدحوينه مدحوينه وتجي دad ay wala tiri hawtigina waxaas uu sheegin iska dhaaf ma yaan oo taga waxa la lacag lagu leeyahay dawladda lacag ugu leh ii sheeg sidaan yeelay maadaam ku keenaa bas meelad ii sheegaysa oo geeyaa baga dhax ku shibo yiri bashir ciise anu geey baga dhax bashir waa baga ku dhacay rasuultidii iskaga bersaaray qasrada iigu jirtaa waa guday iska guday lacag aan leeyahay oo dawlad leedahay qof bin aadan oo leeyahay oo i gashay halaas ay hayeen waana iska guday waa maasata dad badan baa waxay leeyihiin cali mahdi dabaqa ugu dheer magaalada muqdisho ama Soomaaliya oo dhan ayuu leeyahay hanti tiro badan ayaa gashay oo malaayiin ah xaquu ka keenaa la leeyahay oo jawaab sahlanta waa sahlanta toban afar dabaq waaye gurigu aniga xisaabta guriga khasnada kaasfoon yani bangigayga wuxuu ku yaalaa meel la yiraahdo Bavia oo wadankee oo Talyaaniga oo Milano 25 kilomitir u jirto 93 daqiiqo ugu dambeysay aniga oo aan 45 ku kala soo baxay maraan 93 aan tagay 5 kuna igu jirtay 5 kun ay ugu jirtay ilaa hadda shantii waa ku jirtaa saan u malaynayo xisaabtayda gurigaas sad ku dhistamaayno guriga horta aniga ma lihi gurigan baqa ma lihi aniga xaaskayga iskale aniga ma lihi wax shaqo oo ku leeyahay ee shirkayga oo ku jira haba yaraatay ma jiro intee ka keentay waa lacag intee ka keentay waa dawlad Abdullahi Yusuf ayaa waxa ay siisay aniga 100 kun 100 kun oo dollar ku siisay rag kale ay soo bartay lacagta laakiin waxa dawladda waxa madax ka ahay Abdullahi Yusuf rag kale ay soo bartay ay siiyay xaaskayga Ameerika ka yimid 100 kun lacag iguma ogeyn waxay 100 ka ku ka keentay 100 ka waa la siiyay ilaahay amarka anigu markaas laba bir ka bacdi yad Axmeday la dhihi jiray oo dhintay horbuud dadka waaweyn kamid oo iyada ay qaraabo yihiin ay yimidoo warshada waa diideen inaad wax ku dirsateen muxuu ahay sheerarke maanta hal sheer oo waxaan hayaa oo badan dhalay waxba ma haysatay iyo intii tiri 100 kan kun ma ka istaahila ma si ka ma istaahila waa ka istaahila isii basi 100 kan asii qontul kun waxa qaatay asaasiyaashii qontul kun wuxuu dhalay gurigan qofka iga rusaysaba qontiga wuxuu dhalay gurigaas yani dhowr sano waa 10 sano amal waa jira ilaa wuxuu gaaray sheerarkayna wuxuu gaaray 1 milyan iyo 100 kun oo dollar waa gartay ayuu gaaray faa'iidadu waxay markii hore sanooyinka hore ahayd 130 90 sideetan hadda ugu yartaa waa 42 faa'iidadu faa'iidada sheerka qofkii $100 waa 42 dollar hormuud lacagtii aan haysanay oo noo aruurtay waxay ahayd 1 milyan iyo 600 oo kun oo kaasha aan haysanay aad haysateen taasaan ku bilaawna shaqada inta kale sheerarka saan halba sheer u gadaynay hadda sheerarka noo heray moogi 200 miya 300 miya baaga horta halaas gabadhaas aan iska anigu ma balihiba waa ku maasantaa laakiin su'aal markaan dadka dhex galo waxa jira hadallo ay dhahaan ama dadkii xilliga Cabdullaahi Yusuf joogay shaqeynay waxay leeyihiin oo habeen hore ugu dambeysay waxay leeyihiin علي مهدي وحو كفائيدي شركة dib u heshiisiinta ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa jirtay lacag 60 milyan oo Sacuudiga laga keenay oo Cali Maxamed Geedi oo keen lacagtaas waxa la leeyahay oo xoogaa ka helay ma jirtaa taas lacagtaas horta 32 milyan Abdullahi Yusuf ma keenin Cali Geedina ma keenin Sacuudi ana ka keenay ana ka keenay taariikh badan ay leedahay taariikh dheer ma gelahay taariikhdaas lacagtaas waxa lagu shubay dawladda koontadeeda ku shubatay oo aanu ku meelay ku dhigantaa iyo koonto oo waxay hadin sharciin lagu shubo iyo xisaab loo furo dib u heshiisiinta dawladda ku shubatay dawladdaas maamuleysay
anaka 4 milyan ayaa naloo dhiibay 4 bilyan idoo nagu leeyahay 69,000 ayaa horta shirku dhamaaday laakiin lacag lay siiyey Cabdullaahi Yuusuf iyo cali geed ay siiyeen jirta oo 2 milyan lacagta dawladda waxa u soo qaadayay nin oo xawaalada u soo qaada u keenayay lacagta markii la keenay jeeg oo 2 milyan ayaa ninkii lagu soo dhiibay ninkii qaatay ninkii qaatay 2 milyan lagu soo dhiibay ninkii qaatay waa looga waa wax taariikh oo qabiilka u fadhiisteen oo ninkii laga waayay oo ninkii uu joogo xabar ya ninkaasaa qaatay waa maasanta